dalkeena bilila fiican shisheeye damaci keenay ayaankii nagu khaldayne bulshooy isku duubni buuxda ku taageera dowladeena difaaca xuduudaheena dalkeena bilila fiican shisheeye damaci keenay ayaankii nagu khaldayne bulshooy isku duubni buuxda ku taageera dowladeena difaaca xuduudaheena رمضان كريم وحين كجرنا طبانكي دحا وحين إلهي كرجينا مغفرة يدن بالداف وحان إلهي سبحانه وتعالى ومدى المسلمين تميل كستيجوغان ورجينا إلي صون كودا يا عمان شودا خيرك أو كاقبله قارحان دادك الصوماليات ومرحلة أدق مرة يا إلهي إنو كدر قاضو ظروفها كلا دوان hareereeyay noloshooda guud iyo midooda gaarkaaba runtii iyadoo ay ramadaan tahay bil cibaado tahay taraawiix la soo tukaday inaan halka isugu nimaanno ilaahay baan uga mahadcelinayaa noo hirgeliyey inuu kulankan noo qabsoomo waxaana sidoo kale uga mahadcelinayaa gobolka iyo degmada iyo madaxda hay-adaha kala duwan ee dhalinyarada kulankan maanta soo agaasintay waxaad ogtihiin muddadii u dambeysay Puntland waxay ku jirtay halgan ay rabto inay uga dulqaado dulliga iyo darxumada waayadan dambe ay u geysanayeen dadka argagixisada ah ee nabadda rabin ee runtii isu soo bahaystay inay dhiigga iyo dhacaanka bulshadan dhaawac weyn u geystaan noloshoodan halis geliyaan halgankaas waxaa lafdhabar u ah waa dhalinyaro hadday tahay ciidamada furinta ku jira hadday tahay halwadeennada caafimaadka ee gargaarka u fidinaya hadday tahay kuwa gargaarka la dultaagan iyo hadday tahay kuwa dhiirigelinta sida tooska iyo sida gaarka aba wada hadday joogaan gudaha dalka iyo hadday jiraan dibaddaba waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa dhalinyarada meel kasta ay joogaan iyagoo dadka reer Puntland dhammaantoodba ay mahadsan yihiin runtii waxay muujiyeen sharaf waxay muujiyeen dhaqan suuban oo Soomaali iyo adduunkaba runtii tusaale ka noqday geesinimay muujiyeen nafurnimay muujiyeen wax xurid bay muujiyeen gabdho iyo wiilalba iyagoo kala harin waa wax runtii maanta mudan inaan isaga mahadcelinno dhammaanteen dadaalkaas sida wadajirka loo dhalay loo qabtay waa kan maanta runtii saxansaxadiisa iyo udgoonkiisa kalifaya inaan 9 habeenimo ballanteenu ay noqoto caawa halka runtii dadaalkaas waxaynu u baahannahay inayn dhidibada u aasno waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa dhalinyarada ku soo baxday golayaasha deegaanka ee ugu horeysa degmada Boosaaso iyo degmooyinka kale oo runtii muujiyay garab istaaga iyo deegaanadooda inay dadka u diyaariyaan inay taageeraan mashruucan la tabartaagnaa xoolaha iyo raashinka iyo biyaha iyo meel walba taagnaa waxaad arkayseen gudoomiyaasha degmooyinka min cirif ilaa cirif degmo Puntland oo golaheedii deegaanka iyo maayaradeedii iyaga oonan tabarucaad ay ugu tala galeen dagaalka aan wadin oo imaan magaaladii lagu
soo ururinayay ee magaalada Carmo ma jirin runtii waxay noqotay astaan kale oo muujinaysa dalkan in uu isbedelay dalkan inay dhalinyaradiisu soo baxeen dalkan inuu waa cusub u bariyay dalkan in uu dhiig cusub soo galay dib dambana aan loogu baqi doonin haddii awal la isku haleyn jiray maanta dhalinyaradu waxay ka mid tahay hoggaanka hadday shalay eedeyn jirtay odayaasha ama eedeyn jireen mas-uuliyiinta maanta waxaa ilaahay mahadiisa in garbaha laysa saaray jiil weyn iyo jiil dhexe iyo jiil hooseba in mas-uuliyaddii la wada leeyahay in odayaashii dhaqanka oo hoggaanka u ah dalka ay kaalintoodii qaadanayaan inay golayaashii dowladda kaalintooda ay u qaadanayaan inay bulshadii oo runtii ay hormuud u yihiin dhalinyarada iyo haweenka iyo oo marna dhalinyaro ah marna odayaasha ku jira ay kaalintooda qaadanayaan isku duubna ay muujiyeen gudo iyo dibadba waa hifafaalo cusub waa cusub oo runtii u horseedi kara bulshadan waxaan ilaahay mahadiisa maanta inaan goobjoog u nahay taariikhda noocaas inay qabsoonto oo runtii aan muddo badan anigu ku naawulayay in mar la gaari doono inay dhalinyaradu noqon doonaan hoggaanka bulshadatan u horseeda barwaaqada iyo deganaanta maanta ayaad ka markhaanti kacdeen aqoontiinna kartidiinna nafhurnimadiinna waxaan ka markhaanti ahay dowrka aad qaadateen inuu yahay dowrkii ugu shariifsanaa oo ugu muhiimsanaa oo ahaa 95% shuhaadada naftooda ku waayay ee dhaawacmay dhalinyaro haya kuwa maanta u jira buuraha iyo dhaxanta iyo kulaylka waa dhalinyaro waxaan kaloo uga mahad celinayaa inay si wanaagsan u maqleen madaxdooda iyo hoggaankooda khibradda iyo aqoonta u dheeray oo ay u hoggaansameen in ay runtii ilaaliyaan kala dambaynta iyo qorshayaasha howlgalka dawlad heerarkiisa kala duwan waxaa runtii wax lagu faanaa oo wax lagu farxa ah howlgalka intaa la eg oo adduunyadu markay galayso muddo badan ay diyaarin jirtay dawlado badan isugu habarwacan jireen dhaqaale aad u fara badan la gelin jiray inay Puntland iyada oo keligeeda oo maanta cid aan Puntland ahayn oo buuraha calmiskaad hawlka wada ma jirto meesha doonta fiiga ma inkireeno taageerada caalamiga ee nala garab istaageen laakiin taageeradoodu waxay ku eg tahay ama duqayn ama saanad ama taakula kale laakiin cidda dhimanaysa cidda u babac dhigaysa cidda buuraha tafaysa cidda saadka gaarsiinaysa iyadoo xabadda dhacaysa cidda iyada oo miinada la kacaysa aanan soo noqonaynin waxay ahaayeen gabdho iyo wiilal geesiina oo furunta hore jooga waxa uu kaga duwan yahay dagaalkan sida lagu yaqaanay caadada dagaal rag kaliya ka dagaalamayeen ma waa dagaal gabdhaha iyo wiilashuba ay ku wada jiraan runtii waxay ahayd astaan kale oo cusub oo fariin u diraysa cid kasta oo mooday dalkan inaysan dad lahayn cid kasta oo la soo siray cid kasta oo si dhuumaalasho ah intii lagu keenay been loo sheegay oo la yiri dhul la helay baa la helay dhulkan dhul dad leeyahay weeye dadkiisana ay ilaashanayaan ummad meel ku nool dad xun laga waayi maayo waa sunna rabbaaniya laakiin dadkaas waxaa loo yaabaa markay dadka xun ama bataan ama talada qabtaan laakiin inta dadka wanaagsan ay badan yihiin talada hayaan ummaddaas ummad loo boqo ma noqoto Puntland dadkeeda wanaagsan ayaa hormuud ah dadkooda damiirka leh ayaa hormuud ah taasaana maanta keentay
quruxda iyo wanaagga aynu arkayno wixii dhacay ka qoomamayn mayno qadar eebbay ku dhaceen kana gilgilan mayno khalad naga dhacay buu ahaa cidda wax ka raadinaysa inaan la khaldamin ma khaldama waa ilaahay laakiin waxaan u baahannahay inaan khaladkeenna saxno inaan dib midnimadeenna u ilaalinno inaan wacyigeena kor u qaadno inaan shuruucda iyo dowladnimadu ay noqoto wax dadku wada leeyahay ee dad gaar aysan lahayn waxaan u baahannahay talada dalka in laga wada qayb qaato isbeddelkii ku dhacay dowladnimada oo runtii golayaasha deegaanka lagu soo xilay miraheedii waa la hayaa sidii la arki jiray degmooyinka iyo deegaanada abaabul ka socda wax ay dowladdu si toosa u maamulaysa ma ahayn golayaasha deegaanka xisbiyadii qaranka haldoorkii dadka iyagoo midaysan bay waxay qaateen kaalintooda iyagoo oo aragtiyo siyaasad ay kala duwan yihiin ayay danta qaranka ka midoobeen taasna waxaa keentay in taladii ay noqoto talo la wada leeyahay waana horumar puntland aan u rajaynayo waayihii adkaa ay soo martay inay dibduma ugu noqon dhallinyarada farriinteeda waxa weeye maanta meesha la marayo waa meel fiican laba arrimood baa nala gudboonoo kale inta hartay inaan israacinno oo aanan laysdhigan marka cadowgaas xabadda sitay buuraheenna laga sifeeya calmadow iyo calmiska waxaa noo dhiman inaan dib dambe aysan u dhicin khaladkii hore la mid ah oo dowladnimadeenna ay noqoto mid aan kulligeen wada ilaalinayn oo dad gaar aysan ilaalinayn waxaa la rabaa dowladnimada iyo hoggaanka sharciga hoggaansamida sharciga haddaan dadku iyagu aysan samayn dowladdu ma samayn karto waxaan rajaynayaa in dowladdu iyo shacabkeedu ay noqdaan kuwo u midaysan ilaalinta dalka iyo dadka runtii waxaan aad ugu faraxsanahay xamaasadda dhallinyarada iyo dareenka dhallinyarada waxaa noo dhiman dhallinyaradu inay laamaha amniga toos ula shaqayso muddooyinkii dambe waxbaa dadku aan arkaayeen nin walba nin xun buu yaqaanay sida hadda dhacday inay dadka qaybtood wixii ay ogaayeen ay soo sheegeen waxaan uga mahad celinayaa khaasatan gabdhaha dareenkooda hadday arkaan dad si xun u soconaya ama nin guriga si xun u soo dego oo aan la garanayn inay laamaha amniga ah u soo sheegaan kii wax yar isqalluuciya dhallinyarada habeenadii sida xun u socon jirtay muddada howlgal ku jiro hays ilaaliyaan xaaladdu waa isbeddeshay waxaa nagu soo dhaca xogaha u badan gabdhahana siiya waxaan rajaynaynaa hadhowtii inaanan mid xun oo meel hullaaban jooga markii khalad loo dilo la yidha aanaan la odhan hebel buu ahaa ninkii meel xun taagan hebel ma aha waa daacish haddaba ha la digtoonaado nin walba dadkiisa farriin ha u diro ninkii meel xun taagan dadkaasuu la mid yahay soo saas ballan nooma aha qoriga qiiciisa waa la isla tuuraa baa la yidhi wax isku dhex jira waxba lagama qaban karo tallaabo isku midaa laga qaadayaa wixii isku milan ogaada annaga dadka quluubtooda kuma jirno soo maaha quluubtooda annaga dadka kuma jirno waxaan xukumaynaa dawaahirtooda iyo meelahay taagan yihiin waxaan u baahannahay inay dhallinyaradu hormuud u noqoto
iyaguna istoosiyaan ma ogtahay muddo haddii waxun lagu dhex jiro xumaantaa lala qabsadaa dhibtaasaa jirta marka wixii xumaa in laga soo noqdaa la rabaa inta ku jirta in laga waaniyaa la rabaa bulshadan waxaa la rabaa caafimaadkeeda inay dib ugu soo noqoto waxaan insha allahu tacaalaa ku faraxsanahay in magaalada boosaaso oo runtii xarun u ah geyga puntland oo dhan waa magaalada ay ku nool yihiin dhammaan dadka soomaaliyeed iyo rijinka ay ku noolnahay afrika geeska afrika iyo carabtaba dad ka yimid ay ku wada nool yihiin wey magaalo midab gaara leh maaha waana waxa ay ku qurux badan tahay oo aan wanaaggeeda ah laakiin waxaa la rabaa waxaas ay ku wada nool yihiin haddana in la ilaaliyo sharciga iyo kala dambaynta wax xun inay ku soo dhuuntaan lama rabo ninkuu doona ha ahaado ama mid u dhashay ha ahaado oo degganaa xumaanta iyo sharcigu kaa reebi maayo anigu reer boostood baan kaa reebi maayo anigu muddaan degganaan jiray anigu ganacsi baan ku leeyahay kaama reebayso wanaagga waa wax la doonayo laakiin xumaanta sharcigu inuu qabtaa la rabaa ee dhallinyarada waxaan runtii ku faraxsanahay sida wanaagsan aad u shaqaynaysaan kulankaygaan wax kale maaha inaan dhaho waa mahadsantihiin ayuu saldhigiisu inay hawshii weli dhiman tahay oon laysdhigan in wacyiga kor loo qaado in qof walba uu 10 qof noqdo oo hareerihiisa fiiriyo waxaan rabnaa jabtarka amniga iyo cabsida marmarsiyada annaga aan uga dhigan jirnay inaan horumar kale laga shaqayn karin horta inaan soo xirnaa rabnaa anoo madaxweynihii ah waxaan halka inagu ballan qaadayaa dowladda aniga aan mas-uul ka ahay waa dowlad qaanuun dad gaara ma leh xisbi gaara ma leh shakhsiyaad gaara ma leh reer gaara ma leh waa loo simaya cid u humbaalayn kartaa ma jirto cid sharciga dowladda ugu xadgudbi karta cid kale ma jirto waxaan rabaa inaad soo sheegtaan ciddii xadgudub samaysa ama dowladda ha ka tirsanaado ama yuusan ka tirsanaan sharcigaa dadka u wada dhexeeya waxaad aragteen baan u malaynayaa garoowe nin darayska ciidanka sitay oo dabcan ciidamada ka mid ah xadgudubka uu sameeyey waa u xiran yahay soo saas maaha dadka laguma xadgudbi karo ama ajnabi ha ahaadaan ama soomaali ha ahaadaan qofka sharciga in la horgeeyaa la rabaa sharciga inaan gacmaha ku qaadanno lama rabo haddii khalad dhaco oo qof khalad sameeyo waxaa la rabaa qofka u dhow inuu qabto oo yidhaahdo arrintan waa khalad hadduu isagu sharciga ilaalinayana waxaa la rabaa in gacan lagu siiyo marmar waxaa dhacda dhallinyaro isku taagta mas-uuliyiinta amniga ka shaqaynaysa hadda ogaada kuwaa kuma jiraan intaad la dagaalantaan ciidanka ha dhihinina waa wada dagaalanay warkaas ma jiro ninkii ciidamada isku hortaaga waajibkooda ka qabsanayan weliba xaaladaha dagaalka marka lagu jiro marka waxaa la rabaa idinka oo sharciga ilaalinaya nidaamka ilaalinaya laakiin haddana ciidamada waxaan farayaa inay dadka ku xadgudbin oo ilaaliyaan xuquuqda bini aadanka iyo dhaqanka suuban ee dowladnimo haddii ilaahay arrintaas dabcan fariimaha maanta igu jira haddaan dabcayna halka hadlo caawo dhan dhammaan mayaan laakiin waxaan rabaa nuxurka inaysan beelin muhiimaddeedu waa mahadnaq waa inayn halgankii sii socdo aan isku baraarujinno iyo inaan u diyaargarowno marxalada dambe ee dalkeenna dib u dhiskiisa iyo quruxdiisa iyo horumarkiisa aan uga qayb qaadan lahayn taas wakhtigeedaan ka wada hadli doonnaa dhallinyarooy dalkaan idinkaa iska leh dalkaan idinkaa u dhimanaya dalkaan idinkaa dhiigga u shubaaya kuwa dhaawacmay idinkaa dhayaya oo daaweynaya mustaqbalkiisa idinkaa iska leh nin been wata ama meel kale ka yimid meeshuu raba ha ka yimaado ama dalka dibaddiisa ha ka yimaado ama dalka gudihiisaba ha ka yimaado
ninkii sharciga iyo nidaamka dalku leeyahay damca in uu wax u dhimo iska qabta ehel ma aha waxaan u baahannahay dadku inuu wacigoodu isbedelo waxaan u baahannahay in dawladnimadu ay noqoto waxaynu wada leenahay oo ilaashanayno waxaan insha Allah rajaynayaa wax lagu faray fariid laguma noqdaa la yiri dhalinyaradu inay is abaabusho sidii hadda isu abaabuleen inay xaafadaha Boosaaso ee mararka qaarkood crime-ku ka dhaco ina inta is abaabushaan idinkoo kaashanaya maamulkiina degmada iyo gobolka in magaalada dhinacyadeeda dhan ay noqdaan magaalooyin iyo meelo la isku halayn karo in xaafadaha qaarkood mugdi iska yihiin habeenkii oo la tagi karin sax ma noqonayso gudoomiyaha degmadana way maqlaayay golihii deegaanka waxa la rabaa in nolosha magaalooyinka xaafadaha geedaheeda dhan la gaarsiiyo xaafaduhuna maaragtay isxilqaamaan waxaa socda qorshe wadooyinka lagu furayo magaalada lagu nalaynayo ammaanka kor loogu qaadayo si ay magaaladan u noqoto magaalo soo jiidata dadkii ka tegay iyo dadka dalxiisayaasha ee dib u yimaada dhul qurxoon oo runtii markii la arkay lala anfariiray laakiin dad la'aan u muuqday ayaynu leenahay waxaan rabnaa dhalinyaradu inay isu diyaariso sidii ay u samaysan lahaayeen shirkado dalxiis siday dadka u gaarsiin lahaayeen deegaanada maaragtay qurxoon siday nolol iyo shaqooyin cusub u abuuran lahaayeen dhalinyaradu in la yiraahdo maaha waa la dhalay waa la koriyay waxba la baray haddana waa la biilaya sax may noqonaysaa yaa shaqooyin baa laana sax may noqonaysaa arrinta in wax laga bedelay rabtaa shaqaa sharaf leh taas hadda ma rabo inaan igala hadlo halgan baad ku jirtaan laakiin dhalinyarada waxaa la rabaa isbedel muuqda inay sameeyaan runtii dhalinyarada Boosaaso dhalinyaro badan oo deegaanada kala ah waa ay ka duwan yihiin oo waa magaalo ganacsi oo dadku waa shaqaystaa intiisa badan laakiin wax soo saarka iyo habka aan u shaqaysano wiil dhaliilaa ku jira eedana kaligiin ma lihidiin laakiin waxaan rabnaa dawlad iyo ganacsatada iyo dhalinyarada kulli in la iska kaashado qorshayaasha dawladda waxaa ka mid ah sidii fursado shaqo loo abuuri lahaa sidii dadka loo dejin lahaa sidii dib dambe aysan u dhici lahayn qalalaaso dhexdeena ka yimaado waxaan kaliya oo ka digayaa dhalinyarada ruuxadooda marmarka qaarkood u noqota dabka hurinaya isku dhacyada reeraha ka yimaada dabcan dagaaladaas ruuxadooda dhalinyara hurunaysa dadka dabka lagu shidaayo inay noqdaan waa ka xumaa dhalinyarada waxaa la rabaa waxay u dhimanayaan inay noqdaan difaaca dalkooda iyo sharafta dadkooda kaliya wixii deegaanada ka dhaxeeya waxaa la rabaa inay ka odayeeyaan haddii khilaaf jiro dadka xalliyaan inay hurin colaadaha inaysan u noqon hormuud xumaanta ka shaqaynteeda waxaan rabaa haddii ilaahay idmo waxa xun hadda halka ku tirinteeda macno samayn mayso laakiin waxa ugu muhiimsan waa arrimaha khilaafaadka ka yimaada qabiilka waxaan halka baaq uga dirayaa dirirta ka dhacaysa gobolka Sanaag ee labada beelood ee runtii isku qoonsadeen intii dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawacana Ilaahay u boqodayo dawladdii iyo dhaqankii oo wasaaradii arrimaha gudaha iyo suldaankii ay hogaaminayaan baa hadda jira waxaan rajaynayaa Ilaahay idankiis in beeshaas beelaha dagaalamay oo shaydaanku ka dhex shaqeeyay runtii kullay shaydaamada waa la xirxiri jiray Ramadaanka kan meel ka soo baxsada garan maayo shaydaankaas beelada u horseeday in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ka qabto waxa shayaadiinta dagaalanta waa Daacish iyo shabaab iyagu waa shayaadiin iyaga Ramadaanka dagaalama laakiin dad caadi oo Ramadaanka dagaalamaya runtii aad uma lahaan jirin laakiin kuwaas iyaga shayaadiina Ramadaanka ay la beegsadaan la fiirsadaan mashaakilkaas marka iyagana waxaan Ilaahay uga rajaynayaa in uu sulxa laga dhaxwado oo hirgalo dawladahaana waxaan diyaar u nahay arrintaas insha Allah kaalinta naga aadan inaan ka qaadano waxaan rabaa inaan baaq ka diro dirirta ka dhacaysa Tawfiiq iyo eeriyadeeda galbeedka iyo bariga mudug runtii inkastoo waqti badan la geliyay gacmo shisheeye oo aan ahayn dadka deegaanka abaad mararka qaarkood moodaa inay wax ku leexlaman yihiin fariinteeda waxa weeye nabad
iyo wada noolaansho dhammaan geyga Soomaaliyeed gaar ahaan geyga Puntland iyo inta ay ood wadaagtihiin waxaan iyadana ugu baaqayaa dirirta jiidda hore ee gobolka Sool ka aloosantay waan ka xumahay runtii inay arrintaas iyaduna dhacdo waxaan rajaynayay inay dagaaladii intaa ku adkaadaan haddii dadka deegaanka ulajeedadooda ahayd inay deegaanadoodii kala joogaan wixii kale oo dagaal la horiyo waa dagaal runtii aanan garowshiyo lahayn dagaalkaas iyo dirirtaas dadku ku le'anayaan iyadana hala joojiyo hala wada hadlo hala isku dhaganuglaado dad Soomaaliyeed bay nahay degalkan ka guuri mayno weli lama sheegin dagaal siyaasadeed oo xoog lagu xaliyay taariikhda kama dhicin waad maqlaysaan Ukraine iyo Ruushka hadda waxay ogolaadeen Soomaaliya xabad joojin meel xabad ay ku soo idlaatay taariikhda kama dhicin marka waxaan rabnaa dadku inay marka dambe kulle miiska wada hadalka imaan doonaane iyagoo dad badan ka dhiman dadka khilaafka siyaasadeed iyo khilaafka dhuleed iyo khilaafka qabiil baan ka hadlayaa kuwa gardarooday oo shabaabka iyo shayaadiinta iyo daacishka iyagu xal ma leh waxa weeye wadada kaliya u furan waxa weeye wadadii ay qaadeen inay ka soo noqdaan laakiin intay qoriga sidaan waa la dagaalamaya hadday ka soo noqdaan oo bulshadooda u soo noqdaan oo u toobad keenaan ilaahood oo dib u soo noqdaan dee bulshadaas dhaqan celin bay u baahnaan doonaan oo insha Allah in dadka lagu soo dhexeliyo weey laakiin intuu aaminsan yahay inuu qori xalkiisa ku gaarayo ma dhacayso waxaan rabaa halkan iyagana inaan tacsi uga diro runtii dirirta ka socota Hirshabeelle guud ahaan ciidamada iyo dadka deegaanka ee wax ku yeeloobay waxaan si gaar ah rabaa inaan ku tacsiyeeyo hoteelka magaalada Beledweyne ku yaalay hotel Qaahira la yiraahdo shalay dad birmageeya ah oo dhaqan ah oo odayaal ah oo deganaa oo halkaas maalin soon ah intii qarax iyo xabad loola soo galay lagu laayay runtii waa calaamadaha iyo niyadda shabaab iyo daacish cidda u riyaaqaysay ficiladeeda waa sidaas weeyay u dhaqmayaan waxa lagu tarbiyeeyay oo lagu barbaariyay oo har iyo habeen lagu akhrinayaa oo maskaxda looga xalay dhalinyaradaas inay dadka dhulkan joogo dhan ay gaala yihiin oo markay xasuuqaan dalku uu nabad noqonayo ama isdiibaan dhalinyaro intiina badan culumma u badantiin Soomaaliya yaa kulligiin tarbiya islaamiga waa soo qaadatay Soomaaliya waagi hadda dadku jaahilka ah maaha sidaasa islaamnimadu yaa sidaas ma islaamnimo inay ahayn ina cadeysaan oo kor u sheegtaan baa la rabaa nimanka waxay yihiin waa in la cadeeyaa kuwa furinta jooga uma baqaayeen niman boosaaso jooga inay dhahan waa baqayna anu waaba garan waayba yaa meesha xabadda gabdhaha iyo wiilasha xabadda iyadoo dhacaysa mararka qaarkood iyadoo xabadda dhacaysaan saraakiisha waxaan ka kari weyno warbal ka joogo inta naftooda badbaadin ma yeelaynay wallahi inaan been idin sheegin habeenkii ugu dambeeyay oo khawaarista la soo afdaraayay oo ay bilaamatay fiidkii oo koodii duhurnimo dhamaatay saraakiil waqtigeeda ay taariikhdu xuli doonto ayaan telefoon kula hadlo ilaa halka difaac ka galay ma jirtay dheeman baxsaneen ilaa aan soo qabanno joogsan ilaa ay eriyeen ama ay baabiyeen kama soo noqonin mana nasan weliba sarkaalkaas dhaawac buu ahaa markuu waxaa sameynaya markuu shaqada gutay oo ogaaday ciidankiisa inay yihiin kadib baa la soo qaaday runtii waxyaabo mucjisaada ka dhacay oo taariikhdeeda mar gaar ah laga sheekayn doono laakiin ogaada dadka sidaa sameynaya waa dad inala mid ah in halka dad jooga ay weli qaarkood ashuun ku adamayaan ama wax qarqarinayaan sax ma noqon doonto aniga hadda inama kala faarfaaraya idinka isqaani hoos soo waraysta idinka aska kay badiyay hoos ku waraysta
heeriyada gumaysiga la iska qaado soo saab ballan nooma gabdhuhu soo saas ballan ma cid aan geesi ahayn oo dagaalamaysa agtiina ay soo marin intaas fariinteedu ku dara kuwa baqaaya hadhowtiina ma badbaadin doonaan wiilal geesiyaal ay dhalimayaan waxaan ka mahad celinayaa dareenkii quruxda badnaa ee dhalinyarada oo xamaasadda lahaa waxaan runtii nageliseen dhiig cusub iyo dareen cusub oo aan rajaynayno insha Allah inaan hore u sii socono waxaan rabaa laba arrimood inaan halka ka sheego waxaan marka hore rabaa inaan si gaar ah ugu mahad celiyo qurba joogta reer Puntland oo runtii si hagar la'aan ah hawlgalkan u garab istaagtay waxaan rabaa inaan halka fariin uga diro waad ku mahadsantihiin tabarucaadkii iyo dhaqaalihii aad bixiseen oo runtii kaalin weyn ka qaybtay hawlgalka dhaqaalaha soo dirteen wuxuu buuxiyey halkii laga filayay ama laga malayn jiray inay cid kale oo hay'ado caalami ah buuxiyaan marka idinka u maqan dalkan waad mahadsantihiin waana soo gaareen fariimihiin oo dhan dalalka waqooyiga Amerika Australia Afrika Aasiya Carabaha meel kasta inay ka yimaadeen waxaan ku faraxsanahay dabcan guddigii hawshaas u xilsaarnaa ayaa xilligooda ka warbixin doona in warbixinteedana aad kala xiriirtaan laakiin waxaan idin sheegayaa lacagtaas soo dirteen inay gacan aamina ku dhacday guddi odayaal oo akhyaar ah oo runtii aad u hufan inay tahay shilin kasta meel kasta ku baxayna riboorkooda aan helno waqtigeedana aan ka wada hadli doono intaas waa iga fariinta koowaad fariinta labaad anoo dheehanaya hadalladii halka laga yiri waxaan rabaa inaan halka uga dhawaaqo garoonka magaalada Boosaaso inaan ugu magac darnay garoonka shuhadada magacaasan siinaynaa wuxuuna ka dhashay dareenkiina iyo hadalka aad halka ka jeediseen insha Allah waana rajaynaynaa in shuhadadii taariikhdooda la xuso waxaad ogtihiin Carbo waxa laga sameeyay beerta shuhadada Boosaaso iyo meelo kale tan madxafyo magacyadooda iyo taariikhdooda ku dhigan tahay waa la arki doonaa ama kuwa hadda ama kuwii horeetaba dad aan dadkooda nafurayaasha taariikhdiisa aan xusin dad aan jirin weeye marka insha Allah taala dadkaas nagama dhiman waana la nool yihiin waana rajaynaynaa insha Allah taala dhiigooda inuu noqdo dhiigga xorriyadda oo shuhadadaas jiilkii ay ka tageen iyo mirihii ay beereen sida ummadaha kale ay ugu raaxaystaan dadkooda u halgamay inay ugu halgamo insha Allah cadawgii qarniga 12aad Soomaaliya wuxuu noqday argagixis marka insha Allah kaasna inaan halka ka tago hadal badan uma tagin waxaan rabaa inaad tiraahdo waa mahadsantihiin waxaan kaloo rabaa inaan sheego maalintii haweenka way dhimantahay guddoonka gobolka iyo degmada laga sugayaa maalinta iyo meesha ay noqon doonto insha Allah taala si gaar ah waa isku arki doonaa goobaha ku shaqeysana waa soo booqan doonaa gabdhaheena waa laf dhabarta waa gabdhaha runtii shidaalka u noqday hawlgalka waad ku mahadsantihiin meel kasta aad joogtaan gobol kasta aad joogtaan iyo deegaan kasta aad joogtaan gudaha iyo dibadba hadalkayga intaas aan ku soo gabagabaynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi